maanta waxaan go'aan ku gaaray gabi ahaan xubin ahaanshihii aan ka mid ahaa kooxda gurmad inaan iskaga tago. waxaan ahay abwaan ah, heesaan qoraadaa. heesayn waxaan u baahanahay bulsho weyn Soomaaliyeed inay wada qaadato oo fank nin aan noqdo shacbiga Soomaaliyeed u dhaxeeyo, fanaaniinta Soomaaliyeed u dhaxeeyo oon qof qaas ah aan u go'sanin ayaan rabaa inaan noqdo oo fankayga aan u noqdo xur. haddaba intaana muuqaalka u gudagelin fadlan haddaad cusubtahay subscribe kana saar, like iyo comment iyo share-na fadlan waa mahadsan tahay. daawasho wanaagsan. waxaan rabaa inaan ka hadlo maadaama aan ka tirsanaa jiray kooxda gurmad aan ka mid ahay xidigaha uga cadcad ee kooxda. tan kaloo labaad aan xiban ka soo noqday oo afhayeenka kooxda aan soo qabtay xilkii sanadkan dhexdiisa la ii doortay oo haddin aan iska casilay xilli 2 bilood ama 3 bilood laga joogo. arrimooyin jira awgood ayaan uga tegay xilkii. haddin alxamdulilah shukrumaad waxaan go'aansaday caawa inaan arrimooyin badan oo aniga keligay go'aanka aan gaaray inaan idin la wadaago shacbigayga. maanta waxaan go'aan ku gaaray gabi ahaan xubin ahaanshihii aan ka mid ahaa kooxda gurmad inaan iskaga tago oo istiqaalada kooxda aan wareejiyo, aanna gudbiyo hortiinan aan ku gudbiyo shacbiga Soomaaliyeed. waxaan rajaynayaa walaalay ayagan inay ii gudoomi doonaan. tan kaloo labaad waqti aan soo wada qaadanay xumaan iyo samaanba leh, dheef iyo dhibaataba leh. alxamdulilah shukr mahad dad ceesh soo wadaaga ayaan nahay oo waqti isla soo qaatay, farxad ku soo qaatay, xil kasta soo wada maray, alxamdulilah soo wada qaybsaday. adduunyada sideedana waa safarkan qofaad ku barataa, waqtiyaad wada socotaan, waadna ka hartaa waana la socotaa. waqtiga safarkaaga meeshu ku ogyahay weeyaan. aniga safarkayga oo aan kooxda la socday wuxuu kusoo okaaday maanta inaan gabagabeeyo. waxaana rajaynayaa guul iyo gabanimo ayaan u rajaynayaa. fanka Soomaaliyeedna kama bixin oo waan ku jiraa. qof allaalo qofkii aan dabiicadeed iyo dabcigayga isiiyo inaan wax la wadaagana diyaaraan u ahay. marka waxaan rabaa Soomaalida sideeda waxa weeyaan wuxuu yiri belada way abaawshaa. ani kole wax dhibaato ma qabo, qofna dood iyo dacwo uma qabo, qofna xumaan iyo dacwo uma qabo, qofna wax iga mahleen, qofna wax iima dhiman. qof wax ii dhinta maanta waa ani isqabanay, dabiicadeeda iska qabanay ama kooxda ka mid ah ma jirto. isma qaban, cidna isma qaban, laakiin anaa decision-kii ku gaaray inaan ka tago kooxda. anoona cid ii xumeen, cidna ima xumeen, cidna isma qaban, laakiin anaa go'aan ku gaaray inaan gabi ahaan ka tago kooxda. saas awgeed waxaan rabaa inaan shacbigay u gudbiyo oona la socdaan. ilaahay ka dograal naqdeen qof allaalo qofkii fankayga xiiseynaayo kulley waad arki doontiin. qofkii dabiicadayga dabcigayga isiiyeen oo aan la shaqay karin waxaan rajaynayaa inaan la shaqeeyo. kulley maqaada ma saadaali karo, waxna iima qorshaysna kulley, laakiin waxaan rajaynayaa inaan fanka kusii jiro doono. qof allaalo qofkii dabiicadayda iyo dabcigayga isiiyeen inaan la shaqay doono. tan kaloo labaad nin waxaan ahay abwaan ah, heesaan qoraadaa. heesayn waxaan u baahanahay bulsho weyn Soomaaliyeed inay wada qaadato oo fank nin aan noqdo shacbiga Soomaaliyeed u dhaxeeyo, fanaaniinta Soomaaliyeed u dhaxeeyo oon qof qaas ah aan u go'sanin ayaan rabaa inaan noqdo oo fankayga aan u noqdo xur. fankayga inuu xur iyo noqdaan rabaa. ilaan heesa ay qoran aan qoraada aniga ma doonayo aan heesay inay ku koobnaadaan hal meel. macnaha jasiirad yar inaan ku koobnaado aniga ma rabi, inaan muqdisho ku koobnaado ma rabi. waxaan rabaa shanta Soomaaliyeed inaan noqdo, inaan gaaraan rabaa sida aniga aan jeclaha weeyaan. fanka Soomaaliyeed qof walbo fanka Soomaaliyeed ku jirna aniga waxaan nahay walaalo, saaxiibaan nahay, cidna gooni uma ihi. qof walbo oo maanta fanaan ee uu heesaayo qofkii hees iga baahan aniga diyaaraan u ahay. shakhsi goonina aan u jeclahay ma jiro, shakhsi gooni aan u necbahay ma jiro. shacbiga Soomaaliyeed fanaaniinta Soomaaliyeed qaasatan kulli waa ii sameeyaan, walaa abwaan walaa fanaan walaa mulxamiiste walaa muusikiiste. inta cidna maanta alxamdulilah ana gooni aan u jeclahay ama gooni u necbanahay midna ma jirto. qaasatan aniga cabdixamiid maxamed cilmi ah waxaan aad u jeclahay qof walbo fanka rabo inaan dhiirigeliyo oona garab istaago. qofkii jilaa ah oo soo baxayo wixii aan karoonahay inaan u kordhiyo. qofkii fanaan ahna sidoo kale inaan dhiirigeliyo oo aan xaqabsan ninkii socod karo oo taalantiga leh weeyaan. waxaan ka hadlaa qofkii socod karo
oo taalantiya leh laakiin qof aan taalanti lahayn dee aniga waxaan ku saaciida ma aqaano qof aan taalanti lahayn aan cod lahayn amba wax lahayn aniga ma saacidi kara laakiin qofka taalantiga asiga leh waxaan kaga roonaa waxaan jeclahay inaan u kordhiyo aad iyo aadaan u mahadsantihiin walaaladay qof allaala qofkii igu tixan waxaan jeclahay inuu ila sii joogo qofkii dabeecadeyda iyo dabciga helbanahaska sii baxo oo safar salaamaan leeyahay kowdhe ilaan soomaalida waxa weeyaan marka saas awgeena waxaan idin rajeynaa khayr iyo caafimaad kolley mar dhowne wixii news ah waa in wadaagi doonaa waxaan u rajeynaa kooxda aan ka tego walaaladay guul wacan anigana waxaan ka rajeynayaa guul wacan aniga ayaa go'aan ku gaaray kooxdii aan ka midka ahaa ee gurmad in aan ka tago waana go'aankayga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu we love you